waraysigeena ayaynu gudageli doonaa mudane madaxweyne howlo badan baad soo martay intii aad naga maqnayd maamul cusub oo khaatumo haatan adigu aad madax ka tahay ayaa isna la yeegleelay oo la dhisay haddaynu dalkii gudagalno oo aan ka bilaabo Soomaaliya su-aasha ugu horeysan doonay inaan ku weydiiyo waxa weeye marka ugu horeysa markii khaatumo ay shirka ku qabsanaysay ugu dambeysay magaalada Taleex shir kale ayaa ka barbar socday oo deegaanka Sarmaayo ka socday shirka haddii aad khaatumo tihiin xoogaa waad biyo diideen maxaad shirka ku salugteen ama aad kaga shakadeen idinkoo shir kalena leh sidee waxay jireen maba moodin St Paul in su-aasha ugu horeeya laygu weydiinaya ay shirka Taleex iyo Sarmaayo noqonayso waama islaa arrimo ka waaweyn baa ka mudnaan doona laakiin haddii aan kaaga jawaabo dadku waa aaka ka wada yimaadeen isku beel ha ahaadeen laakiin haddana arrimo beel walba goonideeda khuseeyaa jira waa la sii shiraa beeluhu way sii shiraan intayan meesha tegin waa sii tashadaan yaa uga qayb gelaya Sarmaayana hadday arrintu ku kooban tahay sidee la isugu diyaariyaa shirka de wax dhibihi ma jiraan Soomaalidu waxay tiraa sacabka haddaan xeelo ku jirin maxaa habeenkii loo tumaa maxaa loogu beegay waa la ogaa shirka Taleex muddo ka hor baa la ogaa waqtiga uu dhici doono qolyihii abaabulka wadayna waaba kala hadleen qolyaha shirka Sarmaayo waday ama ka horeysiiya shirka khaatumo ama ka dambaysiiya ahayd waxa laga codsanayay ma dhicin biyadiidku halkaas ku yimid marka shirkaasi mudane madaxweyne ma wuxuu ahaa docfaruur aanu ka dhigi maayo laakiin kolley mid annaka nacajabisay oo isugumana soo beegmin si dalaga marka waxaanu arkaynay kolley inuusan ahayn mid taakulaynaya ama gacan ku siinaya shirkii khaatumo oo muddana laga soo shaqaynayay muddana dib loo dhigayey sababaha laga yaabo dib u dhaca uu ka imanayeyna shirkaas Sarmaayo loogu talagalay baaba sababaha ugu weyn ka ahaa wuxuu dib ugu dhacay shir intii aad ku jirteen hawshii doorashada markii lagu doortay madaxweynaha Khaatumo State waxa jirtay xilligii caleemasaarkaagii weerar ay kugu soo qaadeen qaar ka tirsan ciidamada Soomaaliland mudane madaxweyne sidee baad uga baxsatay weerarkaasi xageesa gashay walahi meeshan dhuumaalaysi ma aha xagaan ku dhuuntay iyo burkee galay arrintu ma aha waa ogeyn Puntland in ay ku taabaysay inaan shir ku qabsoomin ma aha midaanu jariidad iyo ama radio iyo TV ka maqalay dhinaca xadka Ethiopia miyaad u gudubteen markaa magaalada Ergoan baa meesha lagu magacaabay soo Saxdheer rafteen ma waa Saxdheer baan ka hadlaynaa meesha aan joognay markaa waa Saxdheer lafteeda magaalo xuduudda oo dhinaca Ethiopia ka tirsan magaalada ayaa border ku taala xuduud okay laakiin idinku xuduudka dhinaca Ethiopia miyaad u gudubteen meesha shirku ahaa xuduudka xagga Ethiopia ciidama Ethiopia oo new police waa joogeen magaalada hadday soo galeen waxyaalaha qaarkood aad ka yaabaysaa ciidamada Soomaaliland waxaad moodaa dad hadda uun iyagoo geelashoodii meelaha la jira iska soo dareeray laana waxyaalaha ayan dantoodaba ahayn bay ku kacayeen way soo galeen magaalada calankii Ethiopia meesha yaalay bay ay qaateen markii horeysa markaa waaba googooyeen meesha ay saa ka yeelayaan waxaaba joogay ciidamada new police mudane madaxweyne haddii dadka ku abtirsada Khaatumo ay in badan rabaan in ay ka qayb galaan maamulka Puntland oo maamulka Puntland ay sheegaan in 17 xubnood ay ugu jiraan baarlamaanka 7 ilaa 6 wasiir ay ugu jiraan dhinaca golaha wasiirada dad badan oo shacab oo reer Khaatumo ku abtirsada ay deegaan ku yihiin fara badan isla Garowe ama caasimadda Puntland oo rabitaankooda uu sidaa rabo miyaad idinku oran kartaan oo la inkiri karaa la oran karaa marka dadkaasi waa dad lacag la siiyey oo Puntland ay duufsatay oo aan qadiyadan dadkooda danaynayn sidee ku macnaan lahayd ali waxa habboon anigu kama murmayo dadkan iyaga tashaday bishii August 1998 iyo ka dantooda mooday
inay puntland wax wada dhistaan ama dadka puntland degan dee sidii la moodayay ama la filayay noqon weyday saluug ma jira waxaa la go-aansaday oo ummadda dhulka ku noolay ay go-aansatay oo si ayan majeerteen u shiray oo magaalada taleex ugu shiray oo isimada dadka dhulkaa u dhashay iyo 80% cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii baa ku shiray magaalada taleex go-aan bay soo saareen go-aankay soo saareen wuxuu noqday inay maamulkooda dhistaan inay dastuurkooda samaystaan ciddii fardi ee meel tegaysaa isagay u taallaa kuwo tegayna oo isim ahaa dadkoodiibaa ka xayuubiyey isimnimada ay sheeganayeen puntland haddii ay gogol idiin fidiyaan nabadeed iyo wadahadal diyaar mootiin haddaad tihiin reer khaatimo haddadanaan joogno maya dee waayana anficin annakaa u fidinay annakaa geed dheeri mid gaabanba u fuulay adduun weynaha ku dadaalay inay isukaya keenaan iyagay ka soo hadday sidaa tahay maxaad u tagteen burtinle oo jifo ka tirsan deegaanka gaalkacyo aad idinkoo cali wakaadi shirkan aad iigu yeedhay interviewganu ma inaan arrimaha puntland ka hadla war may kama soconaynee hadday arrintaadu taa tahay intaasaa igaga filan ilaa soomaaliya raba inaan kaa weydiiyo war ilaa soomaaliya wakhtigeedana ma hayno nusac 35 daqiiqa la yidhi baynu haysanaa 35 maya ka gudbina wakaadi arrinta puntland madaxweynaha keenay fikirka cabdiweli isagaa keenay annagu waxaanu rabnay puntland iyo khaatumo ahaan inaan u shiro ma suurtoobayso yidhi ma jeerteen iyo dhulbahanta inaan u shiro yidhi ma suurtoobayso see wax ku suurtoobayaan haddaad wada rabtaan inaan wada hadlo isagaa yidhi reerkayga cumar maxamuud ahaan baynu u shiraynaa markaan taa dhammaysanana waxaan u gudbaynaa wixii markaa aynu door moodno oo ah sidee halkaa looga sii ambab qaadi karaa laba guddi loo sameeyaa isagiibaa haddana soo noqday oo yidhi tii iima suurtoobayso arrinta cumar maxamuud kuma ekaan karto de annagoo markii hore weelkaanu meesha loo tolay kaa ma ahayn waxaa noo muuqatay ninkaa markaa maamulka madaxda ka ee markii hore intaa ku fikerayay markii dambena warku nagu soo celiyey waa waxaan kuu leeyahay hadda maamulka jira si aanu kalsooni ahaan isugu nimaadnaa ma muuqato puntland waxaa igu maqaalaa Meles Zenawi xilliga oo noolaa inuu isku dayay inaad hor fadhiisataan oo wada hadashaan dhinaca Soomaaliland arrintaas madaxweyne ma jirtay mise ma jirin maxaa idin hagaagay idin suurtagalay waxba ma hagaagin markaana Siilaanya diiday inuu annagu markaa sababaanu joognaa Meles Zenawi isagaa Siilaanya u yeedhay magaaladaanu isugu nimi isagaa ka cudur daartay in ka foollayso Dubai mar aad wada joogteen iyada ma kulanteen mise markaan ismeen arag waxaa jira warar sheegaya madaxweyne intii aad joogtay haatan Ethiopia adigoo raba laga yaabo inaad shir ka qayb gashid in dawladda Ethiopia ay ku soo gudbisay inaad wadankeeda uga baxdid dad badan baa su'aasha qaba maxaad ku jawaabi lahayd taa waxaan odhan lahaa arrintaasu waxbaa ka jira ismaandhaaf ama isfaham la'aanna waaba dhacday waase isaga nimi waa ka heshiinay haddana noqodkayga markaan halka ka noqdo dalka ugu horeeyaan tegayaa Ethiopia noqonaya Addis Ababa noqonaya madaxda Ethiopiana waa ballansanay inaan marka Ethiopia arrinkaad baad awgii baad kaga baxday marka si kastaba arrinta ku dhacday waa ka heshiinay